gabadha halkan kaaga muuqato macnaha waa police officer waxay ka shaqeysaa xabsi dambiilayaasha dhanba lagu soo xiro nin waxa la keenay 25 sano lagu soo xukumay ninka ay jecel u qaatay bismillaahir rahmaanir rahiim qoftana u jeedid laag waxa waa police officer waaye waliba kuwa mataqana levelka ugu sareeyo meelaha joogo xabsigeeda waxa lagu soo xiraa marka dambiilayaasha nooc kasta yihiin kuwii gabar kufsada kii wax dilaa kii wax soo dhaca kii dambi waaweyn sameey all meesha lagu soo xiraa nin xabsigeeda waxa lagu soo xiray ninka halkan kaaga muuqdo oo ah asagana dambiile ah ee qof soo dilay xabsiga ayaa lagu soo xiray qofta ninkan marka la soo xiray aragtay abeenadii kow la keenay ee macnaha muxuu ahaayay dharka laga bedelayay ayay aragtay ninka ay ka heshay abakaasha maxamed naagtiibo mataqaana daytime meesha ka shaqeyn jirtay shiftiga way bedelatayo waxayba ka shaqeysaabo habeenkii shaqeysaabo askartana badana ma jecla habeenkii inay shaqeynayaan lagu qasbo ma hale way ka dhuntaan waliba xabsigaas dhibaatadiisa ayuu leeyahay ayadana riskigan dhan waxay u qaadanaysaa ninkan dambiilaha si ula kulanto oo waqti uga heshay ninka ay ka heshay ninkii naagtan waa asbarteen waa la shukaansaday habeenkii oo dhan mataqaana de seelkiisa ama mataqaana meesha asaga uu ku xiran yahay dadka yaqaano waxa jira xabs asaga iskaga xiray dadka seelka marka lagu wada xareeyo oo ay ka imaadaan cashada iyo jimka marka imaadaan waa la xareeyaa ari ama loo xareeyaa xabsigiisa marka lagu xareenayo oo gashaa ayada sababta ayada waa qofka waardiyaha ahaa meesha dharan gareynaysa kaameradii waxay wadaayada waa ninka meesha uu galay laba maalin ka bacdibu waxay leedahay oo xabsilahaas xafiiskayga hal igu keeno waxyaro sameeyna xafiiskayga hal ugu kan asagana buuqiro kicina xafiiskayga hal ugu kan xafiiska lagu keena 101 qolka lagu soo xiraa dadkii askartu wax ka hadlaysa malahan wax dhays malahan because naagtu ugu sareysa wax dhahaay malahan anyways al ultima naagtu waxay sameysay ninka sawirkiisa oo weyn intay qaadatay oo boor ku dhigsatay ay aroos la gashay banaanka aroos ku dhigatay tii ayaa lagu ogaaday ninkan arooyaysa in ka raashin ninkan aroosiisa soo ninka xabsiga ku xirno dambiilaha maahan oo xabsiga waliba adiga aad ka tahay muxuu ahayd police ka tahay see u ogolaatay macnaha see u dhici kartaa adigoo police ah oo mataqaana maartay amniga meesha sugay haddana inaa xiriir la sameeysid nin xabsiga ku jiro oo xiriirkiin mar dhow haddana uu bilaawdo naagta arrinteeda ma kala ogaaday markii uu weysay atlaas group suuqiya waxa soo gala barnaamijkeeda naagta waxa bal ogaadaybo in ay sirta booliisku dhanba maartay maxaa ahayd ninkan uu sheegi jirtay kaaga si daranka haddana mataqaana muxuu ahaayay tale meeshan oo mataqaana lacag fara badan ay ka sameysay oo ah asaga in ay macnaha u keento adii wixii kontrabanka ah darogooyinkii wixii dhan mataqaana xabsigiisa lagu isticmaalay in ay asaga u keento balaas telefoonno in ay u keento meesha dhexdiisa telefoonno in uu keento ayaaba maartay aaba la sheegay oo wixii dhan maxaa la yiri waxaas dhan meesha lagu keeno bismillahir rahmaanir rahiim ayadana waa la qabtay abu xabsi la geliyno kaaga si daranka isku xabsi ma la geeyna ayada xabsi gooniya la geeyay ay asagana ma qaado u dhiman waqtigiisa waxa u dhiman la dhahay 12 sano miya wax taas u dhiman la dhahay ma fahmaysaa may 17 sano u dhiman la dhahay xabsigiisa ayadana haatan kow ay xabsi gashay isma arkayaan